siyaasi Maxamuud Axmed Saalax ayaa maanta si rasmi ah uga dhawaajiyay inuu u taagan yahay musharaxiinta u tartamaya doorashada golaha wakiilada Somaliland ee soo socota waxaanu sheegay inuu ka sharaxan yahay gobolka Sanaag musharax oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad ka bixiyay hankiisa musharaxnimo oo uu ku lifaaqay asbaabaha ku kalifay inuu sharaxo iyo waliba waxqabadyada uu higsanayo hirgelinteeda hadii la doorto. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan idinku yeedhay maanta qowladiina saxaafadda inaan halkan ka shaaciyo inaan u taaganahay musharax golaha wakiilada ah xilliga doorashada loo cayimay 2016 bisha Disembar inaan soo sharaxo golaha wakiilada xildhibaan. waxa uu kalifay inaan soo sharaxo hankayga siyaasadeed ee aan leeyahay ayaa uu kalifay inaan soo sharaxo golaha wakiilada. golaha fadhiyay 10 sanadood goboladii laga soo doortay majority dib ugu noqon waxna kama qabanin wayna ku guuldaraysan codkii ay shacabku siiyeen shacabkii way qoomeeyeen annaguna waxaan doonaynaa shacabkii codka 10 sano ay ku fadhiyeen halka ay barkii hore qoomeeyeen inaan maanta qoomeynin aan wax alla waxay u baahan yihiin qabano. anigu muddo dheer baan ku soo jiray siyaasadda xisbigan ka mid ah maantana waxaan u taaganahay golaha wakiilada. sidoo kale Maxamuud Axmed Saalax ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag isagoo u soo jeediyay inay qaataan kaarka qodub dhaxaad u ah codaynta doorashooyinka Somaliland. mar kale isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii waxa ka mid ahaa kaloo sheegaya dadka reer Sanaag iyo Sool xilliga doorashada waxa la qaadanaa waxa lagu gelayaa ID cardka diiwaangelintii waa la joogtaa Sool iyo Sanaag bari iyo Koonfur Sanaag waxaanu sheegay inay kaarka diiwaangelinta qaataan haddii kale ma codayn karaan si ay doorashooyinka hore uga harayaan haddii aanay qaadan ID cardka. intaas faraya reer Sool iyo Sanaag bari iyo Koonfur Sanaag. Khalid Bulshaawi, Somaliland Space Channel, Hargeysa.